بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام. وأنا محاضر سو عبد الله وما كان إذا كوب بلا بدونا كورسكي أدوال سويسين أها inventory management system. So كورس كان يوحنا رباه إن إذا كوبره حبكي أتكوس ما يصير لهذين inventory management system أديه كوجارة أو أتكون مارسو على بتاعه. So ما تحرباه inaan si hordhaca uga hadlo waa maxay inventory management system maxay tahay faa'iidooyinka uu inuu leeyahay inaan isticmaalno inventory management system sidoo kale waxaan rabaa inaan sambal ahaan idin tuso inventory management systemka aan rabo inaan course-kan idinku baro sidii loo sameyn lahaa okay aan gudu gala marka cashirkeena. What is inventory management system? Waa maxay nidaamka maareynta alaabta? So nidaamka maareynta alaabtu waa hab aad kula socon karto dhaqdhaqaaqa alaabtaada ama badeecadaada laga soo bilaabo marka aad soo iibsanayso ilaa iyo marka aad iska sii iibinayso. Sidoo kale company kasta wuxuu leeyahay hab asiga u gaar ah oo walaabtiisa ku maareeyo habkaasuna waa mid ku xiran company-gaasi ama shirkadaasi ama ganacsigaasi waxa uu ka ganacsanayo iyo inta uu la eg yahay size-kiisa ama cabirkiisa. Sidoo kale inaad si wax ku oolnimo aad u manage garayso ama aad u maamusho alaabtaadu waxay saameyn ku yeelan kartaa ama ay saameyn ku leedahay qayb kasta oo ka mid ah ganacsigaaga. nasiib daro maareynta alaabta ayaa ah mid adag marka shaqada ganacsiga lagu qabanayo hab gacan ah. So marka aad rabtid inaad ganacsigaaga aad kugu shaqaysid hab gacan ah waxay noqon doontaa mid adag maxaa yeelay it takes a time waqti ayay qaadanaysaa haddii uu qalad kaa dhacana waxay saameyn xun ku yeelanaysaa ganacsigaaga muddo bilooyin ah iyo sanado ah. So marka hadda waan fahanay waxa uu yahay nidaamka maareynta alaabta waan ku soo sheegnay inay tahay nidaam aad kula soconayso dhaqdhaqaaqa alaabtaada. Okay, why use inventory management system? maxaynu u isticmaalaynaa inventory management system? maxay tahay waxaan uga baahannahay iyo faa'iidooyinka ay noo leedahay intaba halkan ayaan uga hadli doonaa. So inventory management oo ah maareynta alaabtu waa muhiim waxay muhiim u tahay to merchandising business or manufacturing business. So merchandising business waxaa la yidhaahdaa waa ganacsiga soo iibsada alaab ama badeecadu soo iibsadana sii iibiya kaasaa la yidhahdaa merchandising business. Okay, manufacturing business waxaa la yidhahdaa waa ganacsigu alaabtu asiga sameeyo sii iibiya. Okay, marka wuxuu muhiim u yahay labadaasi ganacsi maxaa yeelay wuxuu ka caawinayaa inay alaabtooda lunto. sidoo kale wuxuu ka caawinayaa inay alaabtooda ku maareeyaan goobooyin kala duwan. sidoo kale waxay ka caawinaysaa inay hubiyaan in si sax ah loo diiwaangeliyey alaabta. Okay, inventory management system oo ah nidaamka maareynta alaabta wuxuu kordhinayaa faa'iidadaada. sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa customer satisfaction oo ah qanaacada customerkaaga. sidoo kale wuxuu fududeynayaa inuu ganacsigaaga si fudud uu ku shaqeeyo. intaasoo dhan waa faa'iidooyinka uu leeyahay inventory management system. Okay, intaas markaan uga soo baxo inventory management system waxa uu yahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay waxaan rabaa inaan idin tuso systemkii aad ku baran lahaydeen course-kani oo sambal ah. Okay, su'aalkan inakeen su'aalkan waxa u jeedaan dashboard ku qoran waa halkaani waa qaybta ama wejiga hore ee systemkeena.
waxaad u jeedaa halkaani Mohan Electronics Company adigu ku qoro shirkadaada aad ku qoranaysaa halkan waa inventory management system okay and halkan waxa u jeedaan waa purchase sales inventory suppliers or customers okay waxaan oo dhan si faahfaahsan ayaan mid kasto ay kamid ah ugu hadli doonaa iyo mid kasto ay kamid ah sidii loo sameyn lahaa laakiin hadda waxaan rabaa systemku siduu u shaqeynayo inaan tuso so halkan waxa u jeedaan purchase ayaan ku dhufanayaa automatically wuxuu igeenayaa sheetka purchases okay aan ku dhufto oo jeedaan halkan waxa u diyaarsan waa company-ga magaciisa purchase activity oo ah stock in alaabta isoo gasho oo dhan halkan ayaan ku qoriyaa okay waxaan rabaa hal mar tusaale yar inaan tuso oo aan dhaho 8 bisha 8aad 2020 so shirkadda aan wax ka soo iibsaday magaceed halkan ayaan gelinayaa waa Himilo Company halkan waxaan gelinayaa invoice numberka so B010 oo kale iska dheh okay halkan waxaan gelinayaa product code product aan soo iibsaday automatically waa Samsung Galaxy A3 so halkan waxaan gelinayaa inta xabaan ka soo iibsaday waa 20 xabo halkan waxaan gelinayaa qiimihii aan ku soo iibsaday waa $80 automatically waxa u jeedaa waa 1600 haddaan lacagta bixiyayna halkan ayaan ku qorayaa haddii aan bixinayna okay wax ka soo qabataa inaan qayb kamid ah aan bixiyay 600 oo inta kala reeste ay ugu tahay so shirkaddan Himilo Company hore halkan iguma diiwaan gashana si fiican u fiiriyo okay waa markii ugu horreysay wax ka soo iibsaday shirkaddan Samsung Galaxy A3 ayaan ka soo iibsaday oo amountigiisu uu yahay ama amountigu uu yahay $1600 so 600 aan sii kuna igu leedahay okay so marka waxaan tagayaa halkan supplierska so Himilo ayaan soo fiirnay okay dashboard kan taabanaya automatically wuxuu celinayaa page-kii dashboard okay waxaan imaanayaa suppliers ka fiiri halkan maxaa soo galay Himilo waa tan asma Himilo waxaan ka soo iibsaday alaab gaaraysa $1600 waxaan siiyay $600 waxay ugu leedahay $1000 lacag okay dashboard-kii celi sales-kii keen okay customer wax ka iibiyaan leeyahay okay waa customer wax ka iibiyay aan leeyahay 8 bisha 8aad 2020 okay customer ka wax ka iibiyay magaciis oo leeyahay waxaan leeyahay waa Cabdiqaadir Bashiir okay waxaan gelinayaa invoice numberka C05 oo kale iska dheh okay halkan waxaan gelinayaa product-kii aan ka iibiyay okay was Samsung Galaxy J7 quantity inta xabaan ka iibiyay maybe 10 xabaan ka iibiyay qiimahooda waa $150 okay waa $1500 amountiga okay $1500 waxaan ka soo qabataa inuu $500 isiiyo Cabdiqaadir okay so Cabdiqaadir waxaan ku leeyahay hadda $1000 soma $500 uu isiiyay waa markii ugu horreysay halkan fiir Cabdiqaadir Bashiir okay dashboard-kii celi waxaan tagayaa customerska waxaan ka raadinayaa Cabdiqaadir Bashiir waa kana Cabdiqaadir wuxuu iibsaday alaab gaaraysa $1500 wuxuu isiiyay ama aan ka helay lacag waa $500 waxaan ku leeyahay $1000 dashboard-kii celi so halkan waxa kala soconaysa inventory-gaaga okay so marka halkan waa inventory summary okay so inventory summary halkan waxa jeedaa product code-kii halkan ku yaala product description oo ah alaabihii magacyadooda so halkan waxa kale wax ku yaalo opening quantity haddii alaabo ay jirtay hore kuugu taalay halkan aad gelinaysaa alaabaha hadda aad soo iibsatayna halkan ayay imaanayaan okay alaabtii aad iibisayna halkan ayay imaanayaan alaabta ku soo hartana halkan ayay imaanayaan oo ah closing quantity so marka dashboard-kii celi so marka system-keena oo dhan habkaas ayuu u shaqeyn doonaa runtii aad u fudud yahay customer-kii waa system isku wada xiran so ujeedaan amalena insha Allah waxaan rabaa course-kan inaan ku baro system-kani oo dhammaystiran habkii aad adigu u samayn lahayd so aad ay u fududahay kaliya waxay u baahan tahay inaad ani ila socoto oo casharada aan soo dhigayo step by step aad ugu socoto insha Allah course-kani wuxuu noqon doonaa course aad idin cajibiya
haddii ay tahay marka ay kugu horeeyay aad soo booqato channelkani waxaan kaa codsanayaa inaad ka mid noqoto Kaafiya Team oo aad channelkani subscribe saarto sidoo kalena aad gambalelka furato si aad ula socoto wax kasta oo aan halkan soo gelinayno haddii aad ka mid ahayd Kaafiya Team waxaan kaa codsanayaa inaad videogani share gareyso oo aad gaarsiiso dadka walaalahaaga jecel inay bartaan aad baa u mahadsantihiin